Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal barnaamijkeena maanta waxa aan ku soo gudbin doonaa taxanihii aynu bilownay horaantii sanadkan ee aynu ugu magac darnay taariikhda islaamku uu ku leeyahay wadamada hadda aan muslimka ahayn. qaybtiisii koowaad waxa aynu baahinay waqtiga uu bilaabmay dagaalka Ukraine iyo Ruushku, inaga oo ka hadalnay taariikhda islaamka iyo muslimiintu ay ku leeyihiin dalka Ukraine, balse YouTube ayaa muuqaalkaasi ka saaray. Waxaynu isku dayi doonaa inaynu dib u soo gelino haddii Ilaahay idhaahdo. Haddaba daawade, qaybtiisa labaad waxaynu ku soo qaadan doonaa taariikhda islaamka iyo muslimiintu ay ku leeyihiin waddanka Serbiya. qisada islaamka iyo Serbiya waxay ka soo bilaabantay guushii Cusmaaniyiintu ka gaareen dagaalkii Maartiisa 1371, taasi oo u furtay albaabka Macedonia iyo Greega kadib uu galxaadhay inay galaan dalka Serbiya iyo Bosniyada deriska la ah. Tani waxay keentay dhamaadka qayaxan ee xukunka iyo sareynta kiniisadda Ortodokska ee dhulalkani. Sida aynu soo yara sheegnay, islaamku waxa uu Serbiya gaaray waqtigii dowladdii Cusmaaniyiinta, isagoo ku gaaray jihaad iyo duulaano ay qaadeen madaxdii iyo salaadiintii kala dambeysay ee dowladda islaamku. Suldaan Muraadkii labaad ayaa duulaan ku qaaday Serbiya. Tani waxa ay keentay in ay Serbiyaanku ogolaadaan heshiis ay kaga tanaasuleen bar ka mid ah dhulkoodii, iyo sidoo kale ay ogolaadeen in ay bixiyaan jizye ama cashuur. Heshiiskan waxa uu socday ilaa sanadkii 843 Hijriyada, markaasi oo boqorkii Serbiya uu ka baxay heshiiska. Suldaan Muraadna waxa uu go'aansaday inuu ku duulo, waxaanu markii ugu horeysay qabsaday magaalada Samandariya, balse kuma uu guuleysan inuu Serbiya oo dhan gacanta ku dhigo. Amiirkii ka dambeeyay ee Maxamed al-Faatix isaguna furashadii Qustandiniya kadib waxa uu duulaan ku qaaday Serbiya, balse kuma uu guuleysan inuu magaalada oo dhan qabsado ama waddanka oo dhan gacanta ku dhigo. Suldaan Suleymaan al-Qaanuuni ayaa isaguna waqtigiisii duulaan ku qaaday Serbiya, maadaama oo boqorkii Serbiya ee waqtigaasi uu dilay mid ka mid ah warqaadayaashii islaamka. Dhacdadaas kadib, boqor Suleymaan al-Qaanuuni waxa uu diyaariyay ciidan aad u awood badan. Ugu dambeynna waxa uu ku guuleystay inuu qabsado Serbiya oo dhan, maadaama oo uu ahaa xukunka islaamku mid naxariis iyo cadaalad ku dhisan, iyo in dadka la jeclaysiiyo diinta islaamka. In badan oo ka mid ah Serbiyaanku waxay qaateen diinta islaamka iyaga oo raalli ah oo xor ah, waxaana ay noqotay Serbiya gobol ka mid ah gobollada islaamka. Ilaa waqti xaadirkanna ay ku nool yihiin muslimiin badan oo tacadiye iyo dabargooyn kala kulma kiristaanka awoodda ku leh Serbiya. Sida laga soo xigtay buugga Bosnia iyo Herzegovina, intii lagu guda jiray xukunkii Cusmaaniyiinta, Belgrade iyo Sarajevo waxa ay isku rogeen magaalooyinka ugu waaweyn ee koonfurta bari ee Yurub iyo xarumaha dhaqanka islaamka ee Balkaniska ama Bulqaanka, taasi oo gacan ka geysatay in Belgrade loo tixgeliyo ilaa iyo bartamihii qarnigii 19aad albaabka laga galo bariga. Laakiin maanta, dhacdooyin taariikhi ah oo isdaba joog ah iyo marxalado taariikhi ah kadib, mowqifkii islaamka iyo muslimiinta Serbiya way isbedeleen. Dhammaan waxa ka haray dhaxalkii Cusmaaniyiinta waa niyad jab qadhaadh iyo dad tiro yar oo gooni ah oo raadinaya si ay uga badbaadaan caqabadaha xadiday koritaankooda bulsheed, siyaasadeed iyo xorriyaddooda diineed. Dalka Serbiya waxaa ka jira xidhiidh adag oo u dhexeeya diinta iyo qowmiyadda. Inta badan, asal ahaan dadka ka soo jeeda Serbiya diin ahaan waxay aaminsan yihiin Kiristaan, gaar ahaan madhabta Orthodox, inkasta oo aanay taasi macnaheedu ahayn in qofku aanu noqon karin Serbiyaan haddii aanu haysan diinta Masiixiga ama Ortodokska. boqolkiiba 85 dadka Serbiya waxay haystaan diinta Kiristaanka, madhabta Orthodox. boqolkiiba 5 waxay haystaan Roman Catholic. boqolkiiba 3 waxay haystaan diinta Islaamka. Waxa ku xiga Protestantism iyo Yahuudda oo tiro yar ka ah, marka lagu daro tiro badan oo ah dad cawaan ah ama mulxidiin ah. Diimaha iyo qowmiyadaha Serbiya waxaa saameeyay dagaaladii Bulqaanka ama Balkaniska ee 1912 iyo 1913, dagaaladii koowaad iyo labaad ee adduunka, iyo dagaalkii sokeeye ee 1992 ilaa 1995 ee ka dambeeyay burburkii Yugoslaafiyadii shuuciga ahayd. Haddaba, mid ka mid ah natiijooyinkeedii ugu muhiimsanaa waxay ahayd tirtiridda dareenka wada noolaanshaha iyo nabadeed ee ka dhexeeya Serbiya iyo bulshooyinka Serbiyaanka muslimka ah. Waqtiyadaas, maamulkii Serbiyaanku waxay la yimaadeen siyaasado cunsuriyadeed iyo dambiyo waaweyn oo ka dhan ah muslimiinta, oo ay ku jiraan ololeyaal isirsifayn ah, xatooyo hanti, musaafiriin iyo diinka bedelid qasab ah.
tirada muslimiinta Serbiya ayaa hoos u dhacday kadib markii ay muddo dheer ahaayeen qayb weyn oo ka mid ah bulshada Serbiya. Tirada muslimiinta Serbiya maanta waxaa lagu qiyaasaa 240,000 oo qof, oo u dhiganta 3.5% tirada guud ee dadka ku nool Serbiya, kuwaasi oo 20,000 oo ka mid ah ay yihiin muslimiinta ku nool caasimadda Belgrade. Haddii aynu rabno in aynu ogaano isir ahaan halka ay ka soo jeedaan, 70% waxay yihiin muslimiinta Bosniaks. Bosniaks waa qowmiyad asal ahaan dega Bosnia iyo gobol ka mid ah Serbiya. 25% waxay ka soo jeedaan Albania, halka 5% ay ka soo jeedaan Roma iyo qowmiyado kale. Intooda badan gaar ahaan Bosniaks oo tiradooda lagu qiyaaso 145,000 waxay ku nool yihiin gobolka Sandžak ama loo yaqaan Rashka ee dalka Serbiya. gobolkaasi oo maanta dhulkiisu u qaybsan yahay Jamhuuriyadaha Serbiya iyo Montenegro. Magaalada ugu weyn waa Novi Pazar, halka muslimiinta Albaniyaanku ay ku nool yihiin Prševićko Dolina oo ku taala koonfurta Serbiya, meel ku dhow xuduudka Macedonia. Tiradoodu waxa ay ku dhowdahay 67% wadata guud ee dadka deegaankaasi. Magaalada Novi Pazar si guud waa mid ka duwan dhammaan magaalooyinka kale ee Serbiya. Waxaa ku nool muslimiinta ugu badan ee Serbiyada ku faantay madhabta Orthodox ee Kiristaanka. Waxaad maqli kartaa aadaanka oo ka baxaya masaajidda. Sidoo kale wadooyinka waxaad ku arki kartaa rag garku u baxsan yahay, saraawiisha ballaadhan ee Muslimka Eeshiyaanku xidhaana ku labisan, iyo xataa gabdha asturan oo xijaabka Islaamka ku labisan. Intaa waxaa dheer in ay jiraan maqaayado aan wax khamri ah lagu gadin ama wax maandooriye ah lagu gadin. Si guud marka aynu ka hadlayno xijaabka muslimiinta Serbiya, way yar tahay inta ku labisatay xijaabka Islaamka ee saxda ah. Sida laga soo xigtay Maxamed Yuusuf Spahik oo mar ahaa ku-xigeenka madaxa culimada ee jaaliyadda Serbiya, ma hubo imika inuu weli xilka haye. Waxa uu sheegay in Serbiya ay tahay waddan xor ah oo gabdhaha loo daayo inay xijaabtaan iyo inay iska daayaan. Dadka muslimiinta ah ee Serbiyaanka waxaa ka guuxaya weli xusuustooda taangiyadii Serbiyaanka waqtiyadii dagaalkii sokeeye in ay si ula kac ah u bartilmaameedsanayeen, isla markaana ay iska dhigayeen kuwa weerar ku ah Bosnia, waxaana dagaalada lagu gumaaday tiro aad u badan oo muslimiin ah. Sidoo kale kumanaan ayaa tacadiyo, takoor iyo cadaadis lagula kacay, kamana aysan helin cadaalad kuwa isku tilmaamay inay xuquuqda bani'aadamka ilaaliyaan, balse cadaaladda Ilaahay waa iman. Raadadkaas laga dhaxlay dhibaatooyinkaas dagaalka sokeeye ayaa weli ah mid colaadeed oo u dhexeeya bulshada muslimiinta ah iyo kuwa deriska la ah ee aan muslimka ahayn. Inkastoo ay naadir tahay, haddana arrimaha taagan ama aan la xalin marnaba ma keeni doonto xasilooni joogto ah. Xaqiiqada ayaa ah in cadaaladda aan la horgeynin ilaa maantadan la joogo, sababtuna ay tahay aqoonsi la'aanta Serbiya ee waxyaabihii ay samaysay sagaashameeyadii, iyo in ay ku guuldareysatay inay ciqaabto dambiilayaasha dagaal ee dambiyo waaweyn ka galay Serbiyaanka, iyo in ilaa waqtigaas ay jirto weli saameyntii uu dagaalka sokeeye ka tegay, taasi oo suurtagal ka dhigaysa in mar uun ay muslimiintu awood yeeshaan. Sidoo kalena Serbiya xaaladdu ayna sidan sii ahaanin, nasriga Ilaahayna wuu iman doonaa. Si gaar ah waxa ay dadka qaarkiis u xuseen in xukuumadda mayalka adag ee Alexander Vučić ay adeegsato xurguf isir ku salaysan oo u dhaxaysa muslimiinta, masiixiyiinta iyo bulshooyinka kale ee ku dhaqan dalka Serbiya xilliyada qaar si ay uga weeciso arrimaha kale ee dalka iyo siyaasadda arrimaha gudaha, isla markaana ay muwaadiniinteeda uga jeediso guuldarrooyinka soo waajahaya xukuumaddiisa. Eedeymahan ama tuhnadan ayaa ka imanaya mowqifyada xagjirnimada ah ee uu ku caanbaxay xisbigani, gaar ahaan Vučić uu u sheegay baarlamaanka Serbiya bishii Luulyo 1995 Serbi kasta 100 muslimiin ah ayaa loo dili doonaa. Intaa waxaa dheer yaraanta baaritaanka dowladda Belgrade ee ku aadan cadaadiska iyo rabshadaha ka dhanka ah qowmiyadaha kala duwan ee Serbiya, kuwaasi oo haddii ay sii korodho aan la xakameyn karin. Haddii aan wax yar u sii dhigano taariikhda Serbiya, waxaynu arkaynaa waxaynu ku tilmaami karno musiibo iyo hanjab lagula kacay muslimiinta. Ku dhowaad 300 oo masjid oo ku yaala Belgrade, burbur ballaadhan oo lagula kacay, hal masjid oo kaliya ayaa ka badbaaday, waa masjidka Bajrakli oo la dhisay 1575, waqtigaas oo magaaladu ay ka mid ahayd boqortooyadii Cusbaaniyiinta. Laakiin waxaa jira xarumo badan oo loo qoondeeyey oo qabta howlaha masaajidka. Xukuumadda Serbiya inta badan way xidhaa xarumahaasi, taasi oo sii kordhisa dareenka cadowtinimada ee u dhaxaysa bulshada Islaamka ah iyo bulshooyinka Serbiyaanka. Jaaliyadda Muslimka ah ee Serbiya ayaa waxay sheegtay in xukuumadda Belgrade ay iska indhatirtay codsiyo badan oo ay u gudbiyeen si ay u dhistaan masaajid cusub.
inkastoo dastuurka dalka ee 1990 uu nidaaminayo nolosha diinta gaar ahaan qodobka 41 farqadiisa koowaad oo qeexaysa xorriyadda diinta oo ay ku jirto xorriyadda caqiidada iyo xorriyadda gudashada cibaadada halka farqada labaad ee isla qodobkaasi ay sheegayso fikradaha calmaaniga ah ee dowladda iyo sidoo kale cutubka saddexaad oo tilmaamaya in bulshooyinka diimuhu ay xor u yihiin abaabulka dugsiyo diimeed iyo ururo samafal sidaasi oo ay tahay haddana bulshada muslimiinta ah ee ku nool dalka Serbiya ayaa sheegay in maamulka Belgrade ay dhowr jeer iska dhagatireen codsiyadii ahaa in la dhiso masaajido cusub iyagoo xusay in masaajid la'aanta ay keenayso su'aalo la xiriira sida ay Serbiya uga go'an tahay xuquuqda dadka laga tirada badan yahay taasina ay tahay mid muhiim u ah sida ay diyaarka ugu yihiin ka mid noqoshada midowga Yurub xayiraadahaas iyo caqabadahaas oo noocyadoodu kala duwan tahay waxay cadaadis nafsiyadeed iyo mid bulshoodba ku soo rogeen muslimiinta Serbiya taasi oo sharaxaysa sababta madaxda xisbiga baarlamaanka ee dimuqraadiga ah ee muslimiinta Serbiya Suleyman Oglanin uu ugu baaqay madaxda Serbiya iyo midowga Yurub in la qabto doorashooyin maxalli ah oo loogu talagalay maamulka Sanjak iyo ka bixitaanka booliiska Serbiya ciidamada sirdoonka iyo hay'adaha garsoorka iyadoo lagu bedelayo hay'ado Yuruubiyaan ah si ay Sanjak u helaan madax banaani taasina waxay ahayd 2017 baaqa ayaa soo noqnoqday 2019 markii xisbiga baarlamaanka ee dimuqraadiga ah ee muslimiinta Serbiya ay ka codsadeen mas'uuliyiinta Serbiya iyo Montenegro iyo beesha caalamka in la siiyo madax banaani gaar ah gobolka xadka u dhaxeeya labada dal si loo xaqiijiyo horumarka bulshada iyo dhaqaalaha isagoo xusay in dadka degan Sanjak ay muujiyeen rabitaankooda in ay helaan ismaamul u gaar ah oo madax bannaan kadib aftidii la qaaday 1991 waxayna u muuqataa in xiriirka qotada dheer ee labada dhinac jiho kale uu ka dhigan yahay cadaadis siyaasadeed oo saaran dowladda Kiristaanka ah ee Serbiya haddii ay doonayso inay ku biirto midowga Yurub 2025 waxaana saaran inay gutaan waajibaadyo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay in muslimiinta dalkooda la siiyo xorriyadda diinta daawade intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa mowduuceeni maanta xogahan qaybo ka mid ah waxaan ka soo xiganay maqaal ay baahisay saxaafiyad madax bannaan oo lagu magacaabo Nuura Calwaan oo ka howlgasha shabakadda Noon Post haddii uu ku cajabiyey muuqaalkan fadlan like saar kuna soo biir kanaalka si aad noo dhiirigelisid siina sheer garee barnaamijka si uu gaadho saaxiibo kale oo xiiseynaya inay warbixinaha noocan ogaadaan mahadsanid